السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتي وسلامتين ميل والبو دونيدا دافية هذا أكا جوجتان ومركلة إي ولالكين حنف حاج محمود وإذن كلا هدلاي أنا ميديا فضلا هدي أكو عصب تاي channel كي سبسكرايب ربكسي وشير كلا الله فين لكن نعكسي دنبالكا مديقالكا خورالكا سيدا هاوسودا دعو شالي هدينا داون جرتي سبسكرايب لان فضلا مانتي نوصر هديقو ماسان قنبليل كنفرو سي إي كوسو غاران موخال والبا أنسو قلينو اسكو سو نقضو عنو وناكسان إي موخال عصب maantana waxay noo hayaa sheeko kale cusub ayaa idin la wadaagi doona sheekadan waxay dhaxmartay boqor ama malik iyo wasiiradii ayaa khiyaanadooda badatay iyo waajibaadkooda ay si sax u gudanayeen boqorkii markuu wuxuu rabaaday inuu wasiiradan cinqaabo ayuu damcay markaasuu fikray waxaa ka soo go'day in 10A shabaq lagu xiro meel sajin camal lagu xiro xabsi ah eeyihiina gaajo lagu dilo oo la baahiyo sababta uu sidaas u sameynaya maxay tahay wasiirkii gefo hooshiisana gabo in lagu xiro shabaqa sajin loogu dhigo eegana loo geliyo eega as u noqdo hilib casha ama quraac ama hado meesha ay amarkiisu ku dhamaado xukunka malika sidaas noqday ugu horeenbo hal wasiira gafay eeyihii ilan malika doo amar bixi isla markii waa la fuliyaa mugtahay eeyihii 10 beriya baahi lagu dilay hal wasiira bisla markii gaf bilaabay waa la qabtay sajinka lagu tuuray eeyaha loo giliyay eeyihii acneen wasiirada kale in lagu soo socdo waa ogyihiin mugtahay Soomaaliland waxay dhahdaa dibiga khal weesh ku qoos qaadato marka wasiirada kamid ah oo wiliba kubi ugu horhoreeyay waa fikir marka sok kii wuxuu yiri doorkan waa kugu imaan karaa beri maxaa sameeyaa marka xaariska eega haayo oo gaajada ku dili ayuu dhahay beesan ku siinaa abaal gudan ku siinaa eeyahan laga bilaabo maanta ana dhaqaaleenaa yiri aniga aan dhaqaaleenaa adiga banaanka istaag adiga soo xaadir bis waxa sameeyay ninkan eeyihiu isbaray hiluu siinay madaxu u salaaxay biyo siinay maalol 10 maalimood waa la joogay 10 maalimood ayuu eeyihii la joogay ilaan eeyne yey waqti uu la qaatay eeyihii waa barteen marka eega wafi waay nin abaal u galay ee dhaqaaleeyay cunto siiyay ma iloobay abaalkiisana ma iloob hadda gaaladan waxa arkaysaa eega ilmaha waa ka jecelihiin eega jecelihiin waxaan dhahay aniga su'aalan weydii waxaan dhahay us gaaladan mukulaal ma jeclo daanyar ma jeclo ma jira us oo eegan le u barbaarsadaan marka mid oo isla shaqeynaan weydii oo Germany waxaan dhahay idinka maxaa ku jeclaateen us daanyar ayaala mukulaal joogta wuxuu dhahay daanyar saxajaan waa isdhe wax badan sameeyaa minin haddana mininku waa wasaqeeyaa isla inta ku xaaraa wax dhan waa gagadiya alaaba wax lees haleeyaa sirkaas ma fiicno mukulaala ku soo hirtis dheh idna saxajaan kale way hadii dhimatid hada hilibka baa cunay hadii dhimatid hilibka baa cunay ma ku dhaafayso ninkaan ninkii ku dhaqaaleeyahay ku koriyahay ma dhehayso laakiin hadii dhimatid xataa ma ka hilibkaaga ina suxuna ma laga yaabo hadii dhimatid xataa hilibkaaga ma cunay ma laga yaabo hadii dhimatid xataa ina isku dhintaa maxquul ah ma lagu soo xad gudbi kari intii jambigiisa joogtid marka eega wafi way xataa ibn aadanka askaroon badan yahay markii la dhaho dhaqankiisa xabtinimada xaqiiqa jirta ayaa فريد wallahi runtaa waan dhaw daanyar wasakh way saqajaan way meesh sarkas ku xaara meesh sarkas waxa alaab waa gadiya adduunka dhan waa kharbada mukulaalna waxa waaba iska tuuqsi badan tahay aragtay tuugna waayada amar ma qaadayso laakiin inta fadhiis dilo waa fadhiisaha hadii cuntadiisa oo asaga loogu tala galay la siihay waa okiya cuntada kala ma taabahayo habarteeday ka tahay muu dhabaanay laftiisu waa okiya waqtiga la siihay okiya hadii ay saxariya oo banaanka la soo bixiya banaanka wixii ku soo dhameeysa mininkina isku xaar ama isku kaadi ma laga yaabo المهم نكان إيجي يسبري هلو سي
biyuu siiyey waqtigiis la qaatay wasiir way ninkan waa gefi khaladaa ka dhacay oo boqorka ama malagiina maxuu go'aan ku gaaray wasiirkii gefo ama waajibkiisa gudan waaye inuu sajinkii shabaqa ahaa geliyo eeyahana u xareeyo meesha uu amarkiisa ku dhammaado oo meesha lagu feefeentoo la cuno dhinac markii loo fiiriyay ninkan wasiirka wafiyow ahaa boqorkan wuxuu la soo shaqeynayay 10 sano qalad markuu galay ma loo fiirinin intuu soo shaqeynay iyo muddaduu la joogay ileen qaraarkan ama go'aankan waa dhacay فريد waa la qabtay shabaqii eeyaalka la geliyay eeyaalka dhan waa soo safteen waa soo fadhiisteen ninkii madax usa salaaxoo lees gal dhaxdayna iska galino usii eeyaalkii waa sheekaysa waayba boqorkiina wuxuu samay shabaq oo sajin camal intas geliyay magaalada wixii dad joogin waa iskugu yeeri macnaa hala fiiriyo dheh ninka markii shabaq waxaa la geliyay soo murtaax ah oo cabsi qabin ayuu eegi shabaq la galay eeyaalka markii arkeen waa ku soo dudeen bano salaan saaro lay bilaabeen فريد madaxaas usa salaax dhaxdaas ka galay shakay bilaabeen eegi wasiirkii shakay bilaabeen boqorkii waa yaabay dadkii meesha joogi waa wada yaabeen xariskii oo kow eega leh og meeshaan wixii ka jira bogtay markaas waryaa alayri soo bixiyay ninkan waa la soo bixiyay laga saaliyay eeyahan wasiirkii ka horeey dambiga galay waa la qabtay shabaqa loo geliyay eeyahan laf xataa ma kareebin waa jajabsadeen ma ahee jab ma kareebin waa dhuuqeen usadhanay dhuuqeen adiga khaladaa gashi shabaqiyaa lagu geliyay eeyihiin waa lagu keenay eeyihii iikaab ku salaamoy be maxaa kusoo bisixiro lamaate maxaa ku akhrisi quraan dhurwaay maa ku akhrisi eeyaha ma filfish maxaa soo bis dhageysas dheh aniga waxaan kula shaqeynayo yiri 10 sano aan kula shaqeynayo daacad kuu ahaa hool kuu waday nafteeda kuu huray jihaad kuu galay dad karbaashay hool badanaan soo qabtay ani nin wadaniyan ahaa eeyahan uu yiri 10 beriyaan la noolaa adiga 10 sano kula shaqeynayo yiri 10 sano waa ihilmaamtii yiri no لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله waxaana go'aansatay aniga in la cuno eeyahan ay cunaan eeyahan 10 beriyaan la noolaa isde ma ihilmaaminas dhe waa kuwan hareeraheega joogaan waa sheekaysoonaa be waa sheekaysoonaa maxaa naga haleesan فريد haddii 10 beri xataa cunta loo keenin ana miyo cunaayana isdhe 10 beri haddii inta cunta noo keenin ani iikan inta ku xirnaan miyo cunaayaan meeshin jiifta leesoo jijiifaan nacla iga soo ka galayaan habar iyo ilmeed camal boqorkii waayaa wuxuu dhahay فريد maanta laga bilaabo cafisaa tahay yiri howshaada wado caqligeyga waxaan ku jirin iyo fikirkeyga ay keento yiri macnaa 10 sano ila soo shaqeynaysi xaqaa lahayd dambi hal qof uu galay dadka dhan in loo cinqaabanay khalad waaye qaladkan waxaa galay hal qof halkaas qof kaligiisaan go'aankan loo gaaray ninkii dambi gala had kadib in 10 eega jeesan dhaxda loo dhigo buskeeta camal ay cunaan ugu dambeyn wasiirkii waa la day caqliyaas adeegti caqli as adeegti ileen ushii oo walaalkaa lagu tumaaliyo gumudkiis adeeg soo socotaa mugtay ninkan intiis gumud ka soo gaarin waa ka tabaawish tabo eeyaalka laftirkooda heshiis oo la galay eeyaalka laftirkooda heshiis oo la galay فريد waa dhabaadi laakiin daanyeer hadis ahaa lahaay oo 10 beri baah lagu dili shabaqaas loo soo gilay abo dharbaxas ku dili lay dharbax mukulaal hadii ahaa lahayd mukulaal hadii shabaq lagu soo xiro ama gur lagu soo xiro ayadoo isdifaacisay indhaha kaariday moogdo ku soo orday ilfay ku laabay wala ayadoo yaristaas u jeedid ugu dambeyn tan sheeka kala cusub ay ahayd oo macaan badan hadii ay idin cajabisay sida idin sheegaba soo comment karee sheekooyinka si aan soo badino waa mahadsantiin meel walba dunida daafeed ay ku jirtiin waxaan leeyahay
nabaddiin iyo nool kulanto